doodteedii hore maxaa ku jira inuu gudoomiye dhakhaatiirta ayaa noo sheegtay luul in aanay dhib qabin warkaasaa ku jiray doodaada hore iyo in aanay gaas maaragtay ka soo uray dhakhaatiirta warkaas idiin sheegay kuwi waaye dhakhaatiirtii la hor keenay maxkamadda gobolka isbitaalkii ugu horreeyey capital doctor ciisan fila okay caalamiga mar aan weydiinay su-aasha gudubka ah ayaan waxaan weydiinay ma jirtay wax ka soo urayay luul korkeeda awqaate dhakhaatiirtu xukunka maxkamadda asbaabtiisa qodobada 6 7 8 9 iyo 10 waxaa ku qoran warkii ay sheegeen dhakhaatiirtu warkaasi wuxuu sheegayaa dhaktar ka mid ah wuxuu sheegayaa boqolkiiba 90 shirkeedu inuu gubtay waxay sheegayaan lakabka saddexaad inuu gaadhay waxay sheegayaan fursadda ay ku badbaadi kartay dabkaa kaga badbaadi kartay boqolkiiba 10 inuu ahaa dhammaan warkaas wuxuu ku qorayay xukunka maxkamadda qaybta asbaabta qodobada 6 ilaa iyo 10 marka warkii naas markaa dhaqaad ka duwan warkaa ku qoran asbaabta maxkamadda dhaqaatiirtu inay idin sheegtaa halkay dhakhaatiirta waxaa la weydiiyey ma ka urayay gaas racfaanka maxkamadda racfaanka weyn haddaan raadiyeyna inaan ka heli karo wax gaasa kama uraynin buu yiri cabdixakiim in la dhahaan jeclaan lahaa dhakhtarkaas waa gabadha faaduma aha dhakhtarka ku xidhan okay warkaaga waxaa kaloo ku jirtay doodaada inkastoo su'aalahan duruucdii la xilaa idinka dabcan galay waxaa ku jirtay lama yaqaano sababta ay u dhimatay luul lama garanayo warka halkan aan ku aqeeyno waxa ku qoran gaar ahaan dhakhaatiirta warkooda ay maxkamaddu tabinayso luul allah u naxariistee inay u dhimatay dab oo sababay gaas warka idinku marka halkeed ka keentay inay dabka u dhiman okay waxa waaye mudan gudoomiye markii mas'aladan oo kale ay timaado isbitaalna uu qof ruuxa ama bukaan yaallo ee la isku qabsado oo ay ka timaado dood sharciyeed waxaa muhiim ah in la xil saaro dhakhaatiir gaar ah oo ku takhasustay baarista qaabka qofka geeridiisa ay ku timid legal medicine la dhahaa dhakhaatiirtaas laakiin ma aha dhakhtarkii gacanta ku hayay oo ay kala dhaxaysay xiriir ganacsi marka ugu horeyso haddana maxaad uga jeedaa xiriir ganacsi oo kala dhaxeeya xiriir ganacsi waxaan ula jeedaa marka marxuumadda la geynayay isbitaalka waxay ku gashay isbitaalka dhaqaale waxayna ku joogtay dhaqaalay ku joogtay warkaagu dhakhtarku been buu sheegayaa miya dhakhtarka wuxuu sameynayaa difaac uu sameynayaa waayo warkeyga taas marka ma ahayn in asiga la weydiiyo waxay ahayd cid ka baxsan dhakhaatiirtii gacanta ku haysay in gacanta loo geliyo baaritaanna lagu sameeyo si loo helo go-aan cadaalad ah oo dhexdhexaad ah oo labada dhinacba warkooda loo qaadan karo laakiin haddii dhakhaatiirtii gacanta ku haysay ay maxkamadda u isticmaashay xukunkeeda waa dhakhaatiir gacanta ku hayay bukaankii sabab kasta ee uu u dhigi karo oo uu culayska asaga iskaga qaadi karo ama uu caliban saari karo ayay ku dhaqmayaan sidaas darteed go-aan cadaaladeed oo dhexdhexaad ah kama soo bixin okay culayska saaran dhakhtarku iska qaadayo muxuu yahay awqaad waxaa imaan karta mudana gudoomiye negligence taxadar xumaa imaan karto sababtu waxaa waaye lul qaybta daawaday ahayd ciladeeda in la daaweeyo haddana laba waxay ku sheegeen waa kusoo celcelinay caabuq waxaan dhihi lahaa fuuqbax iyo bareesharkeeda oo hoos u dhacay labaduna ma aha labo sababi karto geeri sababtu waxay tahay haddii qofka uu dhiig baxayaa la dhihi karaa qofkaasi wuxuu sababayaa geeriyuu sababaa laakiin 6 maalmood oo isbitaal ay jiiftay inay cillad intaasi ay ku timaado isbitaalkiina uu maalintii ugu horreysay yiraahdo cilladaasi qabtay maalintii ugu dambeysana way ku dhimatay waxa waaye taxadar xumaa meesha ayada ah qayb ka ah waa la heli lahaay marka sababta geerida keentay ee ma aha sababta ayaga ay u dhigayaan waxaad sheegtoo kale doodaada ka mid ahayd loo khatarta kuma sugnayn
markii dhakhtarka la geeyay waxa sheekanaya khatar ba ku sugnay khatarta inay ku sugnay luul sirtu ogaatay ninku mudan gudoomiye inay khatar ku sugneen waxa cadeynayo dhacdadii dhacday ee laga wariyay markaan ku jirnay garmaqalada luul waxay ka lugaysay gurigeedii qolka ay guriga ay deganeed waxayna gaartay Faadumo gurigeeda oo dariskii ah labada guri waxa u dhaxeeya 20 mitir wada ah oo aad u weyn ruux dumara lix caruura wadato inay lugayso oo ay dariska u tagtay albaab ku garaacdo oo ay dhahdo icaawin ma jirin khatar sababtu waxa waaye haday khatar jiri lahayd lagama maarmi lahayn ambulance midda xigta haday khatar jiri lahayd guriga luul ay deganeed iyo Siid Cali ay deganaayeen dhinaca koonfurta ah waxa ka xigo isbitaal loogu magac daray Siyaad Hospital isla markiiba waxa la gaarsiin lahay Siyaad Hospital la gaarsiin lahay halka 4 iyo 10 block oo block stabo uu leeyahay laba block ba ay u dhaxayso wado la gaarsiiyay mootbajaaj ku fadhiisatay kortay hadlaysay qatari kuma sugneen qatar waxa la dhahaa marka qofka la qaado oo preela lagu qaado ama lagu qaado gaariga emergency ah oo ambulance ah laakiin mar hadii ay mooto kortay gaartay hadal iyo tacaamul ay sameeynaysa ma jirin khatar ay ku sugnayd xilligaas ah laakiin isbitaalka ayaa wuxuu sababay inuu gaarsiiyo khatar okay asbaabtiina kale waxa kamid ah oo soo qaatay inay ahayd in la aado loos oo la dhaariyo yaa la dhaarinayo maxaa lagu dhaarinayo marka la aadayo looska marka la aadayo okay mudan gudoomiye waxa waaye markii la heli waayo qofka dambiga keensaday ama la arki waayo fal dambiyeed inuu dhacay shakina uu jiro meesha ayada ah hadda qofkii falka geystay miyaa la laayahay falka geerida wixii sababay waa la garanayaa waa tayn ka hadlayn laakiin falka geerida sababay ujeedku soo doono oo ahaadee ciddii sababtay miyaa la laayahay maya waxa la laayahay cid samaysay fal gacanteedu ku samaysay fal sababay fal geeriya qof sameeyay ayaa la laayahay ee lama la'a in Siid Cali uu guri gubay lama la'a shidaal soo qaatay okay yaa la dhaarinayay si maxaa lagu dhaarinayay su'aasha hadii la aado arinta hadii la aado dhaar baa ka rabtimayso loodka dhaarta ka rabtimayso waxa la dhaarinaa cidda ma cid halkan case kan uu fadhina yaa la dhaarinaya hadii maxkamaddu aado ka soo qaad dhibanaha dhaarta la siina hadii dhibanaha dhaarta uu soo ridiyo waxa loo celinaa eedaysanaha okay su'aasha ugu dambaysa waxaad sheegtay eedaysana Sayid Cali inaanu rabin inuu dib geysto Sayid Calina wuxuu sheegay inay xaaskiisana istagaaleen shidaal la soo gatay gurigana dab qabadsiiyay goor habeenay ahayd 10 habeenimo ahayd caruur baa joogtay dab baa joogay muxuu Sayid Cali rabay dad baa joogay muxuu Sayid Cali rabay marka uu dabka qabadsiinay guriga la hurdo 10 habeenimo caruur iyo xasay hudaan Sayid Cali wuxuu maxay niyadiisu ahayd muxuu rabay inuu sameeyo niyadiisu waxay ahayd sida uu u sheegay luul ayaduna ay ogeey inuu alaabtii guriga u tiilay oo gubanaya mar haday tire nin baan ku guursanayaa guriga ee albaabka ka baxaysa ifur Sayid Cali marka ujeedkiisa waxay ahayd oo intaas oo dhan uu u sameeyay natiijadina way dhacday alaabta ii taalan gubanayo ma ahaan marka qof qarsaday ama raadinayay inuu dhibaato qof u geysto ee waa ay ogeed albaabka markuu ka baxay waxa iimaan kartay in laga xirto waxa iimaan kartay telefoon in la wado waxa iimaan karay dariska in loo cararo intuba waa iimaan kareen waxay tusaysaa marka anaga ka qareen ahaan inaysan jirin ujeedo ah inuu waxyeeleeyo xaaskiisa luul marka guri la hurdo 10 habeenimo aad ka soo qaado aad dab qabadsiiso aad joogto gurigii in la joogo la hurdo ama la joogo dhibka ka dhici kara intuu leeyahay maqyaas karin ma yaayeen sidaas horta mudan gudoomiye waxa iimaan kara Allahu a'lam ilaah baa caalim ku ah laakiin
guriga ruuxiisa waxaa ku noolaa oo joogay 6 caruura waxna ma gaarin asagaana badbaadiyay kana soo saaray su-aasheedu waxa weeye marka tobankii habeenimo inta dadkaa soo gado dabaad soo qaadato guri la urdo aad qabadsiiso dhibka ka dhalan kara qofka caadiga ee miyirka qaba ma garan kara miya wuu garan karaa laakiin markii gaaskii uu doontay ee uu soo qaatay ee uu qolka gubayay qolka waa marnaa cidi kuma jirin markuu ugu yimid qolkeeda uu u sheegayna ma filaynin asaga inay daba marayso ay aadayso asagoo ku yiri alaabtaada ka qaada inta qolku soo guri kama mid ahayn qolku wuxuu ka mid yahay gurigu ka mid yahay dabku markaa inuu faafi karo gurigaas oo dhan gaari karo xataa 6 caruurta ah iyada iska dhaafay oo 6 waxa dili karo soo ma garan karin waa gaari karaa wuuna garan karay laakiin mararka qaarkiis qolku ku ekaan karaa dabka oo ma santahay sida waxaan siinaa xeer xafiiska xeraaliyaas oo jawaabtii uga yiraahdo